أو صبابها نقال من لقوا على مساري يا فرتنا أول لقلي أو صبابها تاسوا نصيب درو كوها ستتي تجمد البورة تجمد الجيل والمرنا ما هدان ناي بيشا في جزء عثمان يا على عثمان أنا نفدين يجبر يوسنا ما بين لوفدين نصيب درو تاسين لقطي marka waxaan muxuu saddex maalmood yaan ku fadhinay hadaan ugaashanahay iyo indheergarad iyo muxuu dhalinyarada reedida beer cali Usmaan waxaan garanay marka in muxuu ahaan ka soo jeedino baaqaas oo ah suldaankii lagu doortay halkan oo ka baaqsaday wixii loo doortay oo la kufay arintii loo dhiibay suldaanimadii loo dhiibay oo garan waayay wixii loo doortay oo ka fadkudiyay meel aan loo fadhiin wax loo fadhiin suldaanku wuxuu ka baaqsaday inuu muxuu ahaa danihii beelaha doortay oo u shaqeeyo oo caasimada Soomaaliland uu tago oo daaqadaha madaxweynaha uu garaaco oo daaqadaha madaxweyne ku-xigeenka uu garaaco oo daaqadaha wasiirada uu garaaco oo daaqadaha golaha guurtida uu garaaco oo daaqadaha golaha baarlamaanka uu garaaco intiiba uu ka baaqsaday suldaanku wuxuu ka baaqsaday uqaad muxuu ahaa salaadiintii gobolka Awdal ee beelaha Galbeed oo muxuu ahaa tabasho ولا تجي محسامي قبس دولة الصوماليين إنه راعوا وكباقصي تاسوا أي دعدي إن أي بناناته كرسي أي بيرها جبرين سكول هاين محاها سلادين تقبلك سلادين تقبلكم قولي باي كلين كمحاها هولا أو فلسطين أو كتشدان دقمة بورمة وحكم مرن باس كيس سلطان جبرين يونس أو فاروقة أو نعدي فردين أي دعدي سلطانku wuxuu ka baaqsaday in muxuu ahaa uu tixgeliyo ummadii dooratay oo danaheeda u adeego iyo ka baaqsaday سلطانku wuxuu tafaxaytay oo muxuu go'aan ku gaaray in lagu dagaal ooge anagu meel ku keenay garinay سلطانku wuxuu qaaday talaabo aan garinay waxa looga jeedo oo leeyahay dalban xoreynaya dalka uu xoreynayo waa Soomaaliland weey ummadda Gadabuursiga Ciisa wada degan wax awla sashada iyo xal isla midna ma jirto hadday tahay Ciisa hadday tahay muxuu ahaa Gadabuursiga habeen kasta boor ma waxa laga qabtaa muxuu ahaa waxa laga hadlaa media yaa laga hadlaa saxaafadda waxa la yiraahdaa ninkaas anaga nama matalo arrin aan u direena ma hayo isku maskax manin tal wadaagna lama leh wax uu maskaxdiisa ka keenay kaliya iyo muxuu ahaa xadka uga talaalay oo kaliya waan goostay taasna wax la yaab la weey gobolka Awdal iyo Deegsel Ciise iyo Gadabuursiga iska leh hadday wax loo tabanayo ummadda beeraha degan oo muxuu ahaa Gadabuursiga Ciise oo dhan waa inay doonaan wixii wax Jibriil gaar uma maqan ma jiro wax muxuu ahaa reedib gaar uma maqan ma jirto wax Jibriil gaar uma maqan ma jirto wax loo egmado oo loo egmado loo dirsay ma jirto wax muxuu ahaa Jibriil soo yiri ama makaahi ama sabruma yiraahdeen waa reedib hawsha noo qabo ma jirto ama Jibriil soo noo qabo ma jirto waxa weeye waa wax alla yaabna oo go'aan qalafsan soo qaatay oo marna loo fadhiyo waxaan leenahay oo go'aankeeyagu muxuu ahaa ku salaysan yahay maadaama waxa qodobadan soo sheegay oo ninkana ku sifoobay inuu yahay dagaal ooge inaan kala noqono kalsoonidii beeshan ay siisay beesha Didil Cismaan iyo Cali Cismaan kalsoonidii ay siisay sardanada ahayd inay kala noqoto ayna ka tashan doonto cidiyada u dhiibin lahayd muxuu ahaa sardanada u dhiibin lahayd waxaan leenahay ninkaasi laga bilaabo saacada ma tanadlayno nama matalo suldaanna noomaha waxaan durayno ma jirto waxaan soo codsanaynaa degmada Quljeed iyo nawaaxideeda inuu nabadgelyo buuxda u siiyo waan ogeyn boor waxay ka dhacay habeen madow iyadoo dhaqtarka dumarku muliyay ay muxuu ahaa qaar ay qatar galeen qaarna ay caruurtii ka soo dhicin ay laga soo muliyay dhashay ku dhaceen oo mursay ka hor wax ku mirsay weeyday oo ku xajisay farka ka dhacay degmada Quljeed oo wax la yaab la weey haddii la arko rasaasta ku taala gidaarada degmada Quljeed iyo dadku halkay fadhiyeen iyo rasaas halkay ku dhacday la oran maayo nin wadanka u dhashay waxa sameeyay oo ka dambeeyay goobti iyo Quljeed weligeed waxay ahayd laba degmo jaar ha jirto shakhsiyaad isafgaran waay laakiin wali ma dhicin rasaas inta degmada Quljeed la yimaado lagu shaandeeyo maatida iyo dumarka oo gidaarada lagu daldalwaliyo ma dhicin waa kow isaga noo socda cid doon meesha timaado magaca doona raato awalba ma dhicin waxa la wixii meesha ka dhacay isaga muxuu subatay isaga aan haysanaa laga bilaabo saacada maanta suldaan noomaa
kalsoonidana waan kala noqonay halkan waxaa ka dhacday degmada Quljeed 10kii bisha weerar hay niman jabhadii ku soo qaadeen degmada iyaga oo dadka shacabka ah soo weeraray oo ina jirin dad ciidamo ah oo degmada dhex yaalay oo magaalada gudaheeda ah oo yaalay oo soo weeraray ina jirin iyaga oo u bareeray inay barakiciyaan dadka shacabka iyaga iyo hantidoodaba halka oo ka dhacday khasaaro ballaaran oo aad baaxadiisu ay u ballaaran tahay oo tukaano furan dadka ay ka yaaceen tii saqadleeyahayd iyo tii ahayd dumar saqadleeya iyo tukaanley iyo maxay ahayd ganacsatadii degmada oo halkaa ka soo gaadhay khasaaro ballaaran oo aad han la soo koobi karin taas oo dadkii markii xabadii lagu dhexriday xilligii ay ugu dareed ay tukaamaysanayeen halkii laga dhex galay qoryo halkaana ay ka soo galeen xagga xadka Itoobiya ay ka soo weerareen nimanka jabhada oo 15 tiradood ahayd halka oo ciidamada qaranku aad uga hawl galeen si hayna dadka shacabka hayna wax soo gaadhay iyaga oo badbaadiyay khasaaraha inta badan ka badbaadiyay ku dhici lahaa degmada dhibaatada soo cusboonaatay iyo xaggii hay ka timid waa la isla taabtay suldaanka lagu doortay halkan imikana hogaamiye kooxeedka ah waxa ka qaadatay go'aan ballaaran waxaan akhrin doono oo sheegi doono go'aanka guddidu u fadhiday go'aan ku gaadhay in la ilaaliyo jiritaanka Somaliland aw yahayna muqaddas labo waxay cuqaasha beeshu go'aan ku gaadhay inay kalsoonidii kala noqotay suldaankii halkan lagu doortay suldaan Abubakar Cilmi Wadar kadib markii uu meeshii lagu doortay ummadii dooratay oo rasaas u leeyahay barakiciyayna saddex waxay cuqaasha beeshu go'aan ku gaadhay in la xoojiyo nabadgelyada labada dhinac ee xagga Itoobiya iyo Somaliland oo labaduba degto beeshu iyo dadka la dariska ah intaba inay nabadgelyadooda ilaaliso afar waxay cuqaasha beeshu go'aan ku gaadhay in loo mahad celiyo ciidamada qaranka Somaliland ee samata bixiyay ninkii ay doorteen ay iyaguna uga naxariis bateen oo dadka samata bixiyeen taana cuqaasha beeshu ciidanka qaranka waa mahad celinaysa qodobka shanaad waxay beeshu go'aan ku gaadhay in ay dawladdu gurmad la soo gaadho dadka suldaan Wabar barakiciyay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونصيب درو إن ما أنت هالكني كهض لا يوان نصيب درو يقول نقطاني وايو وحوي وعنها سلطان كان لقاهض ليو نكي هالكني قطبة وجوك سدي هالكني لما بلودي فديدانها قالنتي نكي وحن هدتك جوابين يبانها نصيب درو ما أنتنا وحي يقول نقطي إنان halka kan to ana farxad lahayn inaan maanta halkani haddana isku taagay ugu noqoto waa nasiib darro taas waxa weey taagalkan ka gudbo waxa weey beesha halkani degan ee Dudi Cismaan iyo Cali Cismaan iyo beelaha kale ee wadaagnaba dhibaatada maanta halkan ka dhacday wali dhibta wali barabax laga baayo ka saboo dhacday degigii wuu dhacay dagaal sokeeyo uu dhacay wali waxa maanta barakaca ku dhacay cimrigeed kuma dhib waxaan leeyahay dhibtuna maanta waxa la yiri barbari ninkii beertuun bay gubtay tii halkaan maanta aan kaga hadlay daartii oran kaga hadlay un bay dhibtay inuu baga timid cid alla cid kale dawlad Soomaaliland kama iman dawladda Itoobiya jaarka nahay kama imanin dad waxaan nahay labada dhanba ilaaliya baana dad inta wadayaashiyadii ayeeyashiyadii ay ku wada dhasheen baana inta dawladina way joogayso wali waxa maanta xamasteeyadii ku dhacay iyo maalkayagii iyo maatidayadii wali waxa ku dhacay waligeed kuma dhicin ana dabaleey maanta waxa weey suldaanka maanta ka hadlayno
waxaan lahayn suldaan hogaamiyaa oo beelaha jibriil yoonis intay tiro leegyihiin isku keena oo hogaamiya oo hadday Soomaaliland tahay hadday Itoobiya tahay hadday Djibouti tahay hadday dibadda tahay inaka dibadda jooga iyo inaka gudaha jooga waqtiga maanta la joogo ee dadku jaahiligii ka baxay ee ninka soo dhalinyaraba maanta waxbarasho nin waliba uu hiigsanayo inaan hogaamiya oo wax u qabta hanu doorana beelaha jibriil yoonis iyaan go'aanka iyagu sidaan ku doorana waxay ahayd dee waxaan hoday kolkaan 10 ninoo wada doonaysa way noo timiday waxaan hoday warina kaasi waa qurba joog waa ilbax international busita kadibada isaga inaka jaamacadda ka waaya fiida waaya kadibada uga soo qaadi ka kale ka soo baxa ama meel wuxuu uga dooni dawladdu uga dooni wasiiradu gali madaxweynuhu gali ku-xigeenku gali guurtadu gali meel kastaba uu isku xidhi baan lahay kacaan baan haddaba raacinayn iyaan doonaynay uma dooranaynin xamas iyo reeraha odayadii buuraha kolkay daadhigi yaraa kolku ku gaabtay ee reer guulahay noqday waa laga soo qaado waxaa la keenay tuulada la keenay islaantii waayeelkaadii boqol jirka ahayd waxaa la keenay odaygii boqol jirka ahaa masaajidkana ku dhawaade degmada la keenay ha ku dhawaada buu yidhi halkaa bay igu dhawee hooye halkaa igu dhaweeya ina teera jaariyadda meel ka shaqeeyo halkaa wax kugu soo diree halkaa waxaad yeeshaa iska jiif inteeba dee kolkay xabada afarta beenijaal laga riday inteeba cidlay ku wada baqteen oo mawdkoodii kaariyoonayaal baa badh lagu soo guray mawd halkana lagu aasoo marag bay leedahay waa cadda ummaduna way ogtahay ciidankuna wuu ogyahay waxaa kaloo dhacay maatidii nabadgelyo ku dhalatay eena weli uun halkaa ina xabada ka dhicin ee kolkii waxaasi aad salaadkii duhur ee ummaddu isku wada timiday ay dhacday halkaa jac ka tidhi badh baa weli iyaa lalaayahay weli uun carruurtii badh baa anu 2 iyo 3 wax la sheegaya mooyaane oo carruura weli waa lalaay meel alla meel ay galeen waa raadcadoodii baa lagu jiraa waa dhibta intaa leeg ee weli dergigii ugu daraa adduunka yaa dergigii baa dagaal iyaa ugu daraa dadkii joogay baan ahay weli uun barkacaynkaasi degmada quljeed kuma dhicin cimrigeedna kuma dhicin waxaan leenahay haddaba taa maanta dhacday cid alla cid kaloon u nasbaynaynaa ma jiro khasaaraha cid han u nasbaynaynaa ma jiro dhimashada cid han u nasbaynaynaa ma jiro waxaan leenahay ninkii aan lahayn nolol han ka sugaynay ileen show waxay ahayd waxaa la yidhi naag arooskeeda u buramurtay ismoobsataa la yidhaha baa la yidhi ilan ismoobsataan ahayn dee inakii aan sidaa lahayn waxbuu nii qabanan lahayn iyaa ilan isna ilan halkuu weysuu ka qaadanoo meeshay wax ka dhacaanba ha qaboojiyo aan ugu talagallay dee isna qori buu jeena qaarraa ilan koorku naga qarinaya waxaan leenahay maanta haddii shalay halkaa degmada quljeed caalamka oo dhani wuu ogaa dhagaxaan kaljacaylo ugu qoray magaciisa ummadoo dhan baan ku soo dhaweynay jibriil yoonis oo dhan baa halkaa iskugu yimid Soomaaliland oo dhan baa iskaga timid dhan walba waa la iskaga yimid kii caynka ahaa kol hadduu xamastayadii haw meel kale aanu gelin uu halkii lagu doortay ee miiskii maalintii lagu doortay maanta ka joogna hawiye waxaan leenahay go'aan waxaan ku gaadhnay annagu xilkii waan kala noqonnay waxaan leenahay digniinna waxaan leenahay walaalow hambadaa hadhay ha ku soo noqonayna nabadgeli war dawladda maqal dawladda Itoobiya ha maqasho ta Soomaaliland ha maqasho ummaddu ha maqasho waxaan leenahay wax alla wixii halkaa xamasayada hadeed ku gaadha isaganu haysanaa murtidiina waxaan kaga baxayaa waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland degmada quljeed waxay ka tirsan tahay Soomaaliland shacabka Ali Cismaan iyo
reer dudul cusmaan waxaan nahay dad Soomaaliland inta degta waa Soomaaliland weey waan aayidsannahay ciidankeedana aayidsannahay maamulkeed madaxdeedana aayidsannahay madaxweynaheedana aayidsannahay calankeedana aayidsannahay calankeeda ayaan ku seexanaynay kullu waan huwanaynay kullu waan harsanaynay dawladda Itoobiya wax dhibaato ah oo inoo leedahay ma jiro wax annagu hanu yeelana ma jiro awalba sidii aan maaragtay aan u wada noolaanaynay weligayba nolosheedu ay ahayd weligeeda deegaankeeda aan hayn kiibaan maanta diyaar u lana dawladda Itoobiya waxaan kaloo diyaar u nahay ummadda jaarka waxaan leenahay harayba waan si wanaagsan u wada dhaqmayn iyagana wixii dhaqan wanaaga iyagana diyaar baan u nahay murtidii waxaan kaga baxayaa oo digniinaan dadka ogeysiinayna dawladana ogeysiinayna warninka dagaal wariga haran nabadgeliyo xamastaa dambe inuu naga soo noqonin hambada halkaa ku hadhay waxa la wixii qasaaraana isagaanu haysanaa bisha 10keedii bisha 12keedii falkii xumaa ee wali ina soo marinay ka dhacay degmada Quljeed ee ahaa qolku haduu meel soo galay milayada qasoon buu soo galay 12kii duhurnimo soo galay nin qori sitaxbada ku bilaabay xamasdi anun kala beelin iyaan cambaaraynayna nabadgeliyo xumadu waa loo yahay dhibaatada ay leedahay nabadgeliyo xumo beeshana way ka dheregsantaa oo beer u bisil wixii dan ugu jirto iyo waxayna ugu jirin waa beelo u bisil way waxa weey nabadgeliyo hadii la waayo iskuul la baran maayo wax la dhali maayo wax la dhigan maayo waxa weeye la shaqaysan maayo waa la garanayaa dhibta ay leedahay nabadgeliyo xumo maalinta 12kii dhibtii ka dhacday salaadkii duhur waa la qaxay dhaqaalihii baa burburay dhaawacyaa ka dhacay iskuuladii baa la xidhay oona ilaa iminka ma garanaysaa aan furmin nacam dhibtaa dhacday darteed waxay noqotay mashkiladda iskaga yimaado oo lagu soo gurmado oo nimbaalkuu joogay waxaa dhacay uu ka soo dhaqaaqo markaa waxa weeye dhibaato ballaadhan ayaa ka soo gaadhay madaxdii dalkan waxa halkan iskaga dambeeyay 3 madaxweyne iyaa soo xukumayay halkan oo Somaliland oo degmo u dhashay degmada madaxda u dhalatay kamida oo mid ka horeeyay Cabdiraxmaan Cali Faarax oo madaxweyne ku xogeen ka soo noqday waxa ku xigay madaxweynihii Daayirayaal Kaahin oo isaguna degmada u dhashay waxa ku xigay Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo isaguna u dhashay madaxda degmada kamida waxa weey Somaliland waan ku jirnaa madaxna waan ka soo noqonnay iminkana waan ka nahay waana ka noqon doonaa ma ogolin wax xumeeya wax rabsha iyo wax dhibaato u keena midna ma ogolin takala waxa weey ciidanka isaga waan u mahadnaqaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa baabuurta isdaba jooga ee meel walba qaxooti tagay ka doontay sidaalka ayadu ku shubaysay soo guraysay iyo waxaan mid noodan sidaa baan ugu magaranaysaa ugu mahadnaqaynaa waanan ognahay oo bari iyo galbeed halkay joogaan ciidamadu waxay taakuleeyaan shacbigooda ay ilaaliyaan ay taakuleeyaan ay biyaha u dhaamiyaan ay raashin waxay ku dhaamaan siiyaan oo wixii dib magaranaysaa ay la qaban karaan kala qabtaan meeshay doontaba Somaliland ha ka joogaan oo ayaga aad baan ugu mahadnaqay ciidamada qaranka ta kale waxa weey mudane madaxweyne adiga waxaan si gaar ah kaaga codsanaynaa haddii aad tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland dhagixii aad dhigtay u dhigtay laamida marta Quljeed inaad si dhaqsaa noogu samayso oo noo soo dedejiso laamidii oo noo soo gaarsiiso degmada iyo degmada boq aad noo soo gaarsiiso adiga madaxweyne taaban ka codsanaynaa waxaan kaloo madaxweyne ka codsanaynaa oo ka codsanaynaa wasaaradda ay magaranaysaa ee waxbarashada aan ka codsanaynaa iskuulada u baahan in la dayactiro ayagana inay dayactiraan ay u dayactiraan ardayda ay waftu u soo dirto si ay u eegaan nacam iskuulada magaranaysaa aan moodin ba sidoo kale inay wali dayactiro magaranaysaa uga maqan yahay ay hay'adu amarto si loogu sameeyo iskuulka loogu dayactiro magaranaysaa ardayda dhiganaysa in loogu dayactiro waxa weeye wixii gaadiid loo helayo degmada haday waxbarashada tahay haday degmada tahay iyo haday caafimaadka tahay iyo wax kasta oo la qaban karana waxaan madaxweyne ka codsanayaa
iyo madaxweyne ku-xigeen wixii awoodu tahay in loo dadaalo oo ma garanaysaa si dhaqsaa wixii loogu qaban karayo loogu qabto ay noogu horeyso wadada laamidaayad adigu dhagaxa dhigtay adeena idina ku qasbin inaad noo dedejiso si ay ma garanaysaa xiisadaha socdana wax noogala qabato iyaan adiga kaa codsan Somaliland jiritaankeedu waa muqadas Ethiopia annagu ma doonayno wax xumeeya waa dawladan walaalanahay waa dawladan isku dheernahay waa dawlad shacbiga iyagu u yaalo waa dawlad Somaliland waa mid aan ka tirsannahay shacbiguna dego labada dawladood iyo ta kuwa kale ee jaarkaynahay waan wada ilaalinaynaa awalna nabadgelyadeeda waan wada ilaalinaynay imikana waan wada ilaalinaynaa ayagana sidaas aan leeyahay iyaguna waa inay naga ilaaliyaan wax dhibaato oo nooga yimaado waa in magaranaysa ayaguna naga ilaaliyaan ayadii oo la daalay ay guddidu shaqaynaysay habeenadan oo dhan ay u fadhiday ay shaqaynaysay oo magaranaysa ay dhibaatooyinka ay dhigi jiraan go'aankan uu beeshu uu yahay go'aanka halka laga akhriyay oo lagu wada qancay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddidii hawlaha ka soo shaqaysay nabad nintiida duraateena mooy waa wax dhaba أنا ندات شا دلابين موي بير سنجدي بقرطي دينكو هذا موي وواحدة با هدو سنجد هدو نن متقالنا نبت الديدو إنه بعضه والله كان أنا نلا سوبر كي داراتو أبار بقول دعيو أنا عدادينيسي إلى دي وضع هو بتيسو وهو حوين وأنا ندانا نبت بعنا معان وهل كانوا وحبي كتو سيساتك وحوي سنجو هادو دبو قرطو يا ده جربو كدعي هدي دكي صوتو ليدر لسكو لجبيو دو يسي دبو كدعيا وحوي أنا جو وحنو لهين يدو وحوي لك باش الريدو عثمان وير القصوق علي إسقاط وجبا أو تاولوجي أنا وحمد دونو نبضة كشقينا وسلطان بعد حيد أنه كان قادين عادي قاعد يسقط أنه دمر كاتري سومالي لان وأكا قوستي لما أنا قاعد دار كتب كاتو تلي وهال كده هل كتب كاتو تلي أنا كواحد نجم مكان ولا حرينا يعني بجرته ونجم مكان waayo ugaas ka noo sheegi lahayd hadda wax naga maqan yihiin nabad kula noolaada tii u baran lagu xajinay shirka ka soo baxday waxa weey koladaadu iska qaaday daaday ku halkani waad ogeeyeen inaan ka dooranay suldaan wabar leeyahay dibad badan inaan naga soo gaadhay hanti badan in horta naga baxday waxa kaloo dhacday salka kolkay marayso inuu xaaskiisii shakhsi baa ka jooga waddankeena inankii u dambeeyey kolkuu waddanka ka qaadayna raslaasna ula dhacay ubadkii buurta qurjeed waad aragtay sawirkiisaa ku qoran 800 oo arday iyaa sawiraysa oo caddaaday balcaddu halkaa caddaaday shalayna 808 kaloo ku birto waayeela iyaa ballaadhay buurtaayoo barabaxay oo cagaag lagu soo ururaya imika magaciisiina masaxay waa nasiib darro tahay لكن على علم جوان ومات وحنا على علم جوان وإحنا شلة كردقة بان حياة دنا ما تانو إحنا شلة ما تكردقة نبانا هو كقل كشة كمان قادنا نبو إسقى استقاده سداد درت وحنا نقول لنا هدي عن هاي بيش الريد يا علي عثمان هدي عن هاي أقاشة هدي عن هاي وضيع دقمتك هدي عن هاي علماء وديك haddii ay nahay ardayda hadday yahaan haweenka haddaan nahay ganacsatada intaaba waxaan go'aan ku godhayna xilkii kala noqonay dadka ku nool deegaanka aniga magacaygu Ismaaciil Ibraahim Nuur waxa weeyaan arrinka 3 maalmood baa loo fadhiyay gelin loo fadhiyay magaraysa Jibriil Yoonis Mataley kiiba magaraysa maanta dhibtan iyaa keenay oodayni mar haddii uu suldaanki aan dooranin noqon waayay abaalkiina uu noqday rasaas lala dhex kala magaalada cid kastaba ku nooshahay habeen hadday tahay waa qaadan leh door cad oo xoolihii dareereen oo carruurtii iskuulka ku jirto
وما قريسا برحوليكم مغيهين أي رصاصكم دي سلامتي دشي إذا الله عيد كو مكي سكول كي كو عرري مكي أقل كي كتمد بي كو عرري مكي حولها دوري كو عرري سيدا ساكا دعلي سيدا درتيد با لو سو غرمدي hadii la soo gurmaday de taladii baa la isweydiiyay mar hadii ninkii wixii aan moodayna uu noqon waayay kalsoonidii waan kala noqonay sidaas la isku raacay rag iyo dumar caruur iyo ciyaal arday wadaar garato uqaal xildhibaano sidaa la isku raacay mid kale labada dawladood weligayaba waan dhexnaalay labada dhanba waan deganahay labad baa ku dhexnoolay ninka say qoriga dabka sita ha waxba la iska yiri kalsoonidii waa kala noqonida baa la isku raacay hadii ma garaysa ay nabadii noqotay maaragtay rasaas la qaato oo wixii laga doonayay ay noqon weyday kalsoonidii waa ka qaadnaa laga raali haw halkii kale la taliiso colkaad wadato iyo adiguba ya waxa la yiri barbari ninkii beeray biyay gutaa halka waxa lagu doortay walar halkii wuxuuga maalintii halka laba tallaabay jirtaa iminka waxaan ka hadalay in aanan ninkaasi xamig qaadi karaynin mas'uuliyad ummadeed cadaawadi nagama dhaxaynin isbaanaan aqoonin laakiin waxa ii muuqatay inuu ka fog yahay nooca mas'uuliyadda qaranka ama ummad qaadi kara laakiin way dhacday reer Quljeed laba eray baa lagu dilay waxa la yiri marka hore waa reer hebel waa nin Jibriil Yoonisa marka labaad waxa la yiri meesheedii uu noogu yimi dadkani sidii ay ku doorteen jacayl ma hayna saasay ahayd daar bay ilaaliyeen maanta waxaan doonayay inaan arko magacii ninka lagu doortay Jibriil oo halkan jooga oo bal khasaaraha meesha waxa uu inta leeyahay iyo halka uu gaaray eegayaan yaan baad filayay laakiin ma arkayo waxa weeye qorow waxaan isku garanaynaa wixii aan isku ogeyn oo ahaa diido laakiin dadka maanta cabanaya anuu ma cabanayo mana calaacalayo waxaan si ku xasuusinayaa wanaaska jaqda lama qaniino waa halkii waxaad ogeyd lagugu sameeyey buurtiibaa ooysa magacaaga lagu qoray dumarkiibaa ooyaya 7 cisho soo jeeday laakiin abaal waxaa la yidhi nin gudan waa la arkaa nin gudan lama arko wax kale lagu yeeli maayo laguma odhanayo waxaase lagu leeyahay kafaa way nagu filan tahay intaayee nadaa waan aragnay waanan ogaanay waxay adayde nadaa bay maanta Quljeed ku leedahay waxaan u malaynayaa waa wax ugu yar wax lagu yidhaaho ama lagu yeedho hadalka waxaan dhaafayaa meelaha reedudub ay odhanayeen inay kalsoonidii kala noqdeen sidaa looga noqday bayna tahay suldaanna uma aha Jibriil Yoonis suldaanna uma aha Reedudub suldaanna uma aha naftiisa waxna cid kale u bedelay ma jirto taas runtii aad iyo aad ugu adkaysanayna aad iyo aadna cadaynaynaa inamada in jooga boorameeyo kuwa meelaha dibadaha joogay hadii jeer waxa ka sheekeeya waxaan u sheegayaa si cad oo cad anoo ku taageersan go'aanka ay gaareen beelaha Reedudub inay sidaa ay tahay kala noqdeen muxuu ahay suldaannimada waxa si cad ay uga noqdeen taasana si buuxda u taageeraya